kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta ugu dooran waxaa kamid ah maamul goboleedkii labaad oo xiriirka u jaray dawladda federaalka Soomaaliya warka cusub wiilkii calanka Soomaaliya ku libisnaa ee ku xirnaa magaalada Hargeysa dagaal xoogan oo Muqdisho ku dhaxmaray ciidamada dawladda xiisada Puntland iyo Somaliland oo sii xoogaysanayay mas'uuliyiin xilka iska casilay Jubbaland oo soo bandhigtay sargaal muhiim u ahaa Al-Shabaab qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilaabo maamulka Galmudug war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulka Galmudug ayaa lagu hakeeyay wada shaqayntii kala dhaxaysay dawladda federaalka Soomaaliya Galmudug waxay joojisay xiriirkii wada shaqayneed ee dawladda federaalka Soomaaliya inta heshiis siyaasadeed laga gaarayo arrimaha dhamaystirka dastuurka doorashooyinka federaalka iyo midda amniga qaranka sidoo kale war saxaafadeedka oo aad u dheer ayaa Galmudug waxay beesha caalamka ka dalbatay inay si dhow ula socoto xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo inaysan aqoonsan sharciyada ay wado xukuumadda Soomaaliya iyo inay xoojiyaan la xisaabtanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay maamulka Galmudug arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli uu aad u sii xumaanayo xiriirka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada qaar dhawaan ayay ahayd markii maamulka Puntland uu xiriirka u jaray dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay sheegtay inaysan aqoonsan doonin sharciyada ay ansixiyaan hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya wararka laga helayo magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa waxay sheegayaan in xukuumadda Muuse Biixi ay maanta xabsiga ka sii daysay Cabdiraxmaan Aar ayay ciidamada Somaliland 14 bishan May ka soo qabteen bartamaha magaalada Hargeysa isagoo ku libisnaa dharka calanka Soomaaliga maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa Cabdiraxmaan Aar la horgeeyay Khamiistii hore taasi oo dhigaysatay eedeymo loo haystay Cabdiraxmaan Aar iyadoo dib u jartay 7 cisho oo maanta ay ku okayd Cabdiraxmaan Aar ayaa la filayay in dib maxkamadda gobolka Maroodijeex loogu soo celiyo muddadaas toddobaadka markuu soo dhameysto balse maanta ayaa dib loogu soo celiyay xoriyadiisa taasi oo u muuqata in xukuumadda kulmiye garawqsatay xariga sharci darrada ah ee kula kacday wiilkan dhalinyarada ahaa wiilkan loo haystay inuu ku libisnaa dharka calanka Soomaaliya ee maanta la sii daayay ayaa wuxuu gudoomiye u ahaa urur dhalinyarada ka wacyigeliya dhibaatada iyo qabyaaladda kaasoo lagu magacaabo ururka qabyaaladiidka sida ay sheegayaan wararka laga helayo xaafadda Xoosha degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir waxaa halkaasi ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidan ka wada tirsan militariga Soomaaliya dagaalkan oo la ogeyn rasmi ahaan waxa sababay ayaa waxaa la sheegay ciidan degan xaafadda Xoosh oo militari ah inay weerar ku qaadeen ciidan kale oo ka tirsan kuwa militariga sidaasna dagaal labada dhinac ku dhaxmaray inta la xaqiijiyay dagaalkaasi waxa ku geeriyooday hal askari halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaan warar soo baxay ay sheegayaan in ciidamada ay kala wateen saraakiil lagu kala magacaabo Liibaan Madaxweyne oo ka tirsan guutada saddexaad ee militariga Soomaaliya iyo mid kale oo magaciisa oo lagu soo qoobay CD wararka ayaa sheegay in meesha lagu dagaalamay uu yaalo gaari Cabdibilaa oo ay wateen ciidankii weerarka soo qaaday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Dharkiinle iyo saraakiisha ciidamada booliiska oo gaaray goobtii lagu dagaalamay ayaa halkaasi ku soo arkay meydka askariga ka tirsan ciidamada militariga ee halkaasi lagu dilay iyo gaariga meesha yaala ilaa iyo hadda lama waxa sababay dagaalkooda waxaana dadka ku nool xaafadda Xoosha ee degmada Dharkiinle ay sheegeen in cabsi xoogan ay soo wajahday isla markaana qaybo ka mid ah ciidamadii dagaalamay ay weli xaafadda ku sugan yihiin xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa hadda mid degan waxaana goobta laga qaaday askarigii la dilay oo loo qaaday xarunta dambibaarista CID-da wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa sheegaya inay sii xoogaysanayso xiisada u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland iyadoo ciidamo badan lagu arkayo deegaanada gobolkaasi xiisada ayaa korortay kadib markii saraakiil badan oo ka soo jeeda dhanka Somaliland ay ku biireen Puntland waxaana soo baxay warar sheegaya in mas'uuliyiin kale ay iscasilaadooda ku dhawaaqeen barsaabkii Somaliland ee bariga gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay isagoo sheegay inuu haatan kulamo la qaadanayo odayaasha deegaanka Masar Soomaali waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aankiisa wuxuuna cadeeyay inuu diyaar u yahay sidii uu qayb qaadan lahaa qaybaha horumarka ee deegaanka ka socda
dhinaca kale wararkaan ka helayno gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamo badan ay gaarayaan deegaanada gobolka kuwaasi oo ka tirsan maamulada labada dhinac. dhawaan Puntland ayaa shaacisay inay isku dhiibeen ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan Somaliland, waxaana sidoo kale ay sheegeen inay saraakiishii hogaaminaysay dagaalada ka socda gobolka Sanaag ay isku soo dhiibeen Puntland. labada maamul ayaa isku haya maamulka deegaanada hoostaga degmada Badhan ee gobolka Sanaag. taliska hay'adda nabad sugidda ee degmada Beled Xaawo ayaa soo bandhigay sargaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kaasi oo ka howlgelayay deegaanada gobolka Gedo. taliyaha hay'adda nabad sugidda ee degmada Beled Xaawo oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in sargaal uu isku soo dhiibay ciidamada Jubbaland oo xubin ka ahaa ururka Al-Shabaab. taliyaha ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland ay ku howlan yihiin sidii loo soo qaban lahaa saraakiil kale oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo la sheegay inay ka mid ahaayeen kuwa weerarada ugu badan ka geysta deegaanada Jubbooyinka. sargaalkan ciidamada Jubbaland ay ku soo bandhigeen degmada Beled Xaawo ayaa ka mid ahaa kuwii fuliyay weerarada ugu badan ee Al-Shabaab ka geystaan deegaanada gobolka Gedo sida uu taliyaha sheegay. taliyaha NISA ee Jubbaland ayaa shaaciyay in saraakiisha kale ee la shaqeynaysay sargaalkan ay fursad u haystaan inay isku soo dhiibaan ciidamada maamulka Jubbaland ka hor intaan la bilaabin dagaal ka dhan ah Al-Shabaab. madaxweynaha Jubbaland ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab iyadoo Al-Shabaab uu leeyahay weerar ay ka geysanayaan deegaanada maamulka Jubbaland. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen Dalka Media. intaan warkan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.